السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا مركز صدق داوان سنة كان واهم مدود أنا قرن حني عبد الرحمن وحكون رجينا عافماد قد مركز صدق داوان يسوع هدي أنا لجوا تواد ما هتصنت هاي إبراج كصاحب بدأ يسومري لو ذاك وشر جره هدي أنا وعصب تاين وده بقول لكم بس أنا قرن أي حردا سبسكرايب نصوده ووحير بقى نود منه نقول صبير هذا برت الفيسبوك داوان السنة فلو نصوده رمضان كريم ومالنتي لباتناد waxaynu galay 10kii dambe cid qubina naar ilaahay naarta inaga xoreeyay inaga dhamaan muslimiinta intii dhimatayna Allah u naxariisto marar kale oo ramadaana kalena Allah inuu cimrigeena inagu simo waa casharadeen imtixaanaha ee ku saabsanaa dhaqankeena sooyaalka ah ee xeer ciise waxaynu ku jirnay qaybtii ugaaska hadda waxaynu joognaa qaybtii xeerida iyo caleema saarka haddaba ugaaska oo u jahaystay meesha lagu yiraahdo ugaas lagu boqor ayaa halka iyo saylac u socda dabeedna socodkiisii ayuu soo maray hol halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyay waa ka sii gudbay dabeedna madaxtooyada intuusan gelin ayaa duleedkeeda laga weeciyay saan magaalada loo dhexmarinin halkaas maamulka Soomaaliland waxaa xusid badan iyaduna socdaaladii iyo safarkii iyo soo dhaweynta ugaaska aad u fududeeyay oo ay maartay xadka la iska talaabayay oo la galaabaxayay oo iska galay ahayd waxa jirtay marka intii la socday ayaa ninka la yiraahdo Xuseen Mataan yaa meel biyo xareeda ka soo daray biyaha xareeda waxa xeer ah in loogu xiiro ugaaska biyo xareed ah waa hagaag kadibna meeshii ugaas lagu boqorahayd baa la soo gaaray dhinac baa loo baxay markii dhinac loo baxay ugaaska dhinac baa loo saaray dadkii kalena meesha ayaa lagu reebay marka ugaaska waxa xeera in loo xiiro xilli ay qorraxdu dhinaca duhurka ay ka degtay geeda waaweyn oo quraca iyo xaggooda ay la aaday 7 nin baa raacday ugaaska ninka u xiiraya iyo 6 nin oo matala 6 bahooda ciise ka kooban yahay geed aan guduni ku dhicin salkiis ayaa la fariisiyay halkaasay go'yaal cadcad 6 oday ay geesaha kaga qabteen dadkana waa loo diiday inay u yimaadaan halka ayaana ugaaskii markaas loogu xiiray nin reer Shiniila ah oo shariif ah oo la yiraahdo Shariif Ali ayaana u xiiray 6 oday ee kalena geesaha ayay ka taagnaayeen halkaas baa markaa laga jahaystay dabeedna ugaaskii oo labisan ayaa la soo saaray cumaamadiina mar kale Axmed Cabdulla Gadiid oo wardiiq ahaa baa u xiray cumaamadii isagoo shulug cad iyo cumaamadii ku labisan oo isagiiba aan ahayn ayuu soo baxay ugaaskii halka baa laga dhaqaajiyay waxaa la tagay saylac oo markeedii hore dad yar ku noolaayeen laakiin maalinta ciirciiraysa baa la tagay oo dadka arrada joogay oo dhanba uu isu yimid halkaas markii ugaaska la geeyay waxa kamid ahayd inuu badda la geeyay oo badda ku soo dabaashay waxa kale oo maaragtay badda isaga waxa ku weheliyay nin la yiraahdo Daahir Cige oo nin xeer yaqaan ahaa iyo Xuseen Mataan oo ninka afhayeenka ugaaska ahaa ayaa ku weheliyay waxa kamid ah in uu maqaamkii Sheekh Ibrahim Saylici inuu soo booqday oo qubuurta uu soo salaamay inay culimada qaadiriyadu ay si weyn meeshaas ugu soo dhaweeyeen ayaa kamid ahayd imaha kadib ayaa xafladii loo fadhiistay halka ayaana xafladii lagu furay halka ayaana cumaamadii lagu saaray Maxamuud Axmed Buux Aare ayaa ugaaska maartay cumaamad saarkiisii dabadeed hadalka furtay oo meeshaas xafladii ka furay hadal dheer iyo soo jeedin iyo duco iyo tala bixin iyo waxa soo dhan markii caleema saarkaasi uu dhamaaday cumaamadiina loo saaray halka lagu boqoray ayaa markaa dadkiiba aad u batay oo waxa lagu leeyahay 250 oday baa ugaaska la socotay ciidamada warkooda daa shacabka culimada caruurta mas'uuliyiinta ka kala socda Somaliland iyo Djibouti iyo waliba deegaanka Soomaalida carrada ayay ka badan yihiin
iyo salaadiinta iyo ogaasyada Soomaaliyeed ee kale dabeedna halkaas markii la arkay dadku suu badan yahay baa la meeshan looma adkeysan karo waa in la laabto dib iyo Djibouti baa loo noqday Djibouti markii la tagay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti madane Ismaaciil Umar Geelle ayaa soo dhaweeyay oo halka harema sharafeed maalin ugu sameeyay maalintii ku xigtayna mid aan ka soo dhicin ayay u sameeyeen oo qada sharafa dadka reer Somaliland waxa xusid mudan inuu abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Xadraawi iyo abwaan Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye laba nin oo Soomaalidu aad u taqaano abwaana inay ka qayb galeen maalinka dambe ee harema sharafeeda loo sameeyay ka bacdi inta markay dhamaatay ayaa dib loo soo laabtay halka ayaa laga soo ambabaxay si magaalada Dirdhaba hay loo aado intaan Dirdhaba la aadin waxa jirta dixihii laba meelood oo dhiman waa biyo qaboobe iyo dixda la yiraahdo biyo baxay labadaas in la mariyo ayaa la rabaa markii dib loo laabtay dawanle ayaa la sii maray si iyadan mug iyo miisaan leh ayaa loogu soo dhaweeyay Aisha sida ay si ka sii weyn biyo qaboobe ayuu tagay halkaas oo boqolaal neef loogu qalay oo lagu martigeliyay muddo 3 bari ayuu halka u joogay 3 habeen waa ka sii gudbay biyo baxay markaa tagay biyo baxay markuu tagay sidii oo kale ayaa iyadana loo soo dhaweeyay oo intaas oo neef baa loo qalay ka bacdina dadka reer biyo baxay waxay codsadeen inuu 3 bari ugaaska la joogo waqtiga oo yara adkaa daraadeed ayaa markaas laga cududaartay waxa xusid mudan in reer Ashkirna ay yiraahdeen boqolkii samoonada Maxamed Saarida iyo gabadhii aan caadada u lahaynba waanu keenay hana laga gudoomo dabeedna in laga gudoomay guurkiina dib loo dhigay lagana codsaday in ugaasku u daalan yahay oo waftidu daalan tahay oo muddo sanad la wareegayay in la raba iminka in la nasiyo ugaaska in la fasaxo ugu dambeyn markay isku yardhajiyeen way aqbaleen oo way fasaxeen sida ayaa lagu soo tagay Dirdhaba ayaa sida lagu yimid markay Dirdhaba la yimaadayna wacdarihii adduunka ayaa ka dhacay iyo soo dhaweyn magaalada dhanayda Dirdhaba la kala xiray maalintaas maalin ashqaraar leh oo Dirdhaba iyo Soomaali loo kala baxay bay noqotay oo jidadkii oo dhan xidhmeen oo magaalada la dhexmariyay halka ayaa la dajiyay reer Dirdhaba waxa farxadooda u dheerayd in ugaas Mustafa uu reer Dirdhaba yahay oo Dirdhaba ku dhashay sida daraadeed ugaaskii Dirdhaba ka soo baxay waxa kale la sheegaa ugaaskii koobaad ama ugu horeeyay ee Ciise yeesho oo magaalo laga qabto buu noqday ugaas Mustafa ugaasidii 18 kala dhanba waxa laga qaban jiray dadka mihir miyigaana in badan xeer dhaqata ah sida daraadeed ayuu wuxuu noqday ugaaskii koobaad ee magaalo laga qabto taasa marka farxadda Dirdhaba u dheeray sheekada ugaas la'aantii oo Ciise 15 sano soo maray oo aan ka soo sheekaynay oo 1994 iyo ilaa 2009 inta u dhaxaysay waxyaabay dhacay caqabadii jiray aan ka sheekaynay xolistii gudidii qabanqaabada sahanka iyo aragtidii ugaaska ilaaladii dambe la diray soo qabashadii wadadii dheereed ee la soo maray sidii loogu cumaamad saaray intii dixood ee la soo mariyay muddadii dheereed ee kolba uu cid gacanta ugu soo jiray soo wareejintii u xiiristii caleema saarkii soo dheelmadkii ka bacdi sagoontigii ku soo celintii gurigii Ciise oo ugaas buuxa leh ugaaskii oo uga la boqoray halka ay sheekadaas ugaasku inoogu dhamaatay waxayna ku daraynaa sheekooyin yaryar oo tusaalooyin qatara ah oo ku saabsan garihii la qaadi jiray iyo dhinaca corruptionka ama waxa la yiraahdo gubada hoosta la iska siiyo qaabkii dadkaasi ay ahaan jireen ma wax caada ah bay ahayd ma wax marmar dhaca bay ahayd laba dhacdo ayaynu bartan ka soo qaadanaynaa waxa la yiri nin baa nin dilay ninkii markuu ninkii dilay wax marxaati ana lama hayo ayaa qoladii ninka laga dilay iyo u geed fadhiisteen dabeedna markay qabsadeen ayaa waxay sameeyeen qoladii kale ee la haystay inteen la isu iman geedka bay qolo gudidii kamid ah intay u tageen bay ari sameena ah oo tiradiisa la garanayn bay siiyeen
way gubeeyeen way laaluusheen dabeedna guddidii sidii lagu yaqaanay maynan caad bixine meermeer iyo warwareeg bay bilowday meermeerista wareega kadibna waxay yidhaahdeen meeshan markhaatina ma yaallo xaqana la iskuma leh dabadeedna waxaa dhacday inay nimankii iska dareereen iyagoon xataa jawaab celinin oo waan qaadanay waan aqbalay geed baan ka leenahay baa la dhihi jiray sababta waxay dareemeen inay guddidani ay tahay guddi aanan noogin hawshan ku wareerin ee balse xakranayso oo ay wax ku dhex jiraan dad aad u fiira dheer aad u aragti dheer weeyaan dadkeenu way iska kaceen gugii baa da'ay meesha holhol la yidhaahdo ayaa la tegay Jabuuti halkaasaa loo naqdoontay meeshii baa la isugu yimid labadii qoloba meeshii bay isugu yimaadeen waxaa kaloo la ogaaday laba nin oo odayaal ah oo rag iskuma jireen raggii xeeryaqaanka ahaa ee dhaqanku siduu ahaa wax u naqi jiro garyaqaan ah nin la yiraahdo Gaboobe Sange iyo nin la yiraahdo Giire Cadaawe ayaa la ogaaday meesha inay joogaan dabadeedna waxaa maahmaha lagu maahmaha ama la yiraahdaa xeer waasaan qolojiya oo waa la qoystaa yani saanto markaad banaanka soo iska qalalan tahay markii biyo lagu dhaxridana soft bay noqotaa way jilicdaa marka xeerka xilligaad u baahataba wax ku hel wax ku waa ku diyaar asagu sidaa daraaddeed maadaama la ogaaday nimankaas inay joogaan garyaqaanka ah ayay qabsadeen nimankii gogol bay dhigteen dabeedna geedkii holhol ee caanka ahaa ee garaha kuwii lagu qaadi jiray ka mid ahaa ayaa garti la geeyey nimankii siday waagi sameeyeen oo kale sameeyeen waxay soo qaadeen bahal weyn oo naad ah oo hilib ah iyo kili ay ka buuxaan bahalka la yiraahdo qadaadiic ama qaraashi ama quruush kolba kaad u taqaano ay ka buuxaan qaraashisi quruushtu waa lacag laga isticmaali jiray dirdhaba ma laga isticmaali jiray saylac iyo adari ba laga isticmaali jiray lacagtaas ay u keeneen oo kili ku jirta dabeedna nimankii bay habeenkii u keeneen labadani waa laba nin oo garyaqaan ah way isweydiiyeen Gaboobe ayaa wuxuu yiri oo weydiiyay ninkii kale ee la joogay ee saaxiibka Giire ah ragga xoolaha inoo keenay sawgartu kuma go'no haayo way ku go'day buu yiraahday inayna laaluushiyaan way baqayaan way muuqataa naadkii iyo hilibkii oo meeshii daboolan bay ka soo tageen bartii lagu ballamay bay yimaadeen dabeedna waxay yiraahdeen raggii la haystay hebel dhigiisa loo haystay ma joogaan waa joogaan baa la yiri waa la isxaadiriyaayo yaa maqan yaa joog waa la hadlay gartaa waynu soo baranay sida loo bilaabo ducada lagu bilaabo hadallada la yiraahdo ayaa maaragtay waa la geli oo serious aalaan baa lagu geli oo hawlihii oo dhan waxaas oo dhan hore baan u soo baranay kullu go'mayno dabeedna markii ay yiraahdeen la naadiyay nimankii waan joognaa yiraahdeen bay waxay yiraahdeen ninkii hebel ahaa dilkiisa ee aad disheen magtiisii way idinku go'day ee iska bixiya walaalayaalow sidaana waxaa yiri tolmacaane waxaa kaloo inta ay raaciyeen oo ku dareen labadii nin xalay nagu darsateen waa naadkii iyo killigii labadii nin xalay aad nagu darsateen waanu afgaran weynay aniga Giiraba waanu isafgaran weynay nimanka meeshii bay idinku sugayaan orda u tago doonta bay ku yiraahdeen maxay ka dhigan tahay laaluushkii ma naqad markay nimankii arkeen waxay jiraan inaad tadfashilmi lahaydeen ceeboobi lahaydeen nimankani waa niman ka go'an tahay way la faqruxsadeen oo markiiba waxay yiraahdeen magtii waanu qaadanay tolkayow waxaa tusaale kale ah riti illa yaa wiil yaro dhalinyaro ishi kale ka riday dabeedna waa la isku qabsaday sidaynu naqaanana awrta magtoodu waa 12 sameenood haddii riti la dilo qolada kale ee la dacweynayo ee magta awrka laga doonayo waxaa aabbo ahaan oo ka difaacaya magta laga doonayo oday xeer yaqaan ah oo magaciisa la oran jiray heel goolaane
ninkaas ayaa difaacaya ninkaas wuxuu yidhi walaal wiilkaygu eeg hadda wiilkaygu awrka il buu ka riday ishii uu ka riday magteedii baana laygu leeyahay inuu indhabeelayda ilba horey ratigu u la'a dabeedna gartaa laguma qarcin waa lagu kala tegay nin la yidhaahdo gahaydh ashkir oo xeeryaqaan ah bay u tageen ninkii bay hawshii uga warrameen waxaa la yidhi ninkii hiil golaana ahaa sidaa ayuu naga hor keenay annana waan ka soo tagnay wuu dhagaystay wuxuu yidhi ninkaas u tagtaan waxaa ku tiraahdaa asaguna ninkaas waa nin ilbula'ya wuxuu ku yidhi marka saddexdan inaan kuu soo diray haddii ay ku dileen maadaamaad il la'dahay ma waxaa la odhan doonaa magtiisii 85 halaad bixiyo 15 halaad ee isha ka jar baa la odhan doonaa mise 100 laga qaadi doonaa warkii markii loo geeyey ninkii hiil goonaala ahaa wuxuu yidhaahday ritiga hilibkiisana ii keen magtiisana iga soo doono awrtu muhiimad gaara ayay Soomaalida u leedahay sidaa daraaddeed baa tusaalayaal badan oo jira awrka looga doortay muhiimadda awrku leeyahay gabay mashhuur ah oo Soomaalida aad u taqaano oo awrta lagaga hadlay ritigaas muhiimadda iyo kaalinta uu nolosha bulshada Soomaalida kaga jiro ayaaynu kor istaageynaa oo yar oo meesha uu ku qoray qoraaga buugu awr sagaal ka weyn oo micidu noqotay sooraanta ninku eebba siiya yaqaan samafalkiisii soo qaba carruurta dhaadaasii taweynaha surka loogu doobaa hoggaan dumar sameeyeene markaasuu sarbeebida bannaan salu fadhiistaa siriq joogsi loogama baqiya sar iyo buubaale xadhig soohan suun iyo maraag lagu sakaaleeye saab iyo wixii saanle iyo weliba saabaanka sadka reerka yaalloo dhan baa loo surradiyaa saddex ubadi korkiisa way seexan karayaan kolkaad amarka siiso adigu sare istaagaa suuryo dhuuban buu kula maraa kaana socod dheer gabayada iyo gabayada kale oo fara badan ayaa ka mid ah sidaasaa marka yaa ritigii dee muhiimadda urtigaasu leeyahay aad maaragtay aad ku fahmi karaysaa saa ayaana tusaalaha loo soo qaatay waxaynu ku gabagabaynaynaa sheekadii yarayd ee sheeko muhiima aad u qiso aad u muhiim u ah waa ninkii la odhan jiray Samir Geelle wuxuu ahaa xilligii ugaas Xasan Xirsi Allah naxariiste labadaba ayuu joogay sheekadani marka waxay ahayd Cornel Mengistu ayaa wuxuu xilli abaaru dhaceen iyo xabashi fara badan deegaanka Soomaalida gobolka Shabeelle la geeyay webiga Shabeelle yaa la geeyay dabeedna wuxuu hunguri ka qabtay maadaama uu xukun military ahaa in ciisaha dhulkiisa laga raro ciisuhuna dad isku duuban weeye waana 80-aadkii sidaa daraaddeed ba marka waxay damceen inay ciisaha intay la shiraan ku qanciyaan inay guuraan oo deegaanka Soomaalida gudihiisa galaan dhulkana Itoobiyaanka kale lagu abuuro dabeedna nin Cornel ah oo Harargee waxay Itoobiya aqoon jirtay ama Ogaden Resges ama bariga Itoobiya ama hada kilka loo yaqaan ama Somali State ayaa magacyada faraha badan loo yaqaano deegaanka Soomaalida yay damceen inay sida beenbeenta ay ku qaataan dabeedna nin la oran jiray nin Cornel ahaa oo la oran jiray Cornel Seleqow ayaa ciisihii la shiray wuxuu ku yidhi ciisow dhul abaaro soolima abaa degantiin dhul barwaaqo biyuusa oo qulayaan oo beerataan baan idin geyn xooluhu sayna idinka dhammaanin abaarahana xoolaha idinka dhammaynayaane halkaas idin geynayaa dabeedna ugaas Xasan baa intuu istaagay u mahad celiyay ninkii iyo dawladda iyo qorshaheeda ay fiican ay wadato hadalkiina wuxuu siiyay ninkii Samir Geelle ah Samir Geelle xabashaduna way isqaanaan Samir nin naxama ahayn dabeedna wuxuu u yidhi niyow tusaale yar baan kuu sheegayaa nin boqor ah baa dadka jeclaabi barwaaqadu la jeclaa abaartana wala nacbaa ninkii noocaas ay dadkiisa barwaaqayn jiray yaa shimbir meel abaara joogta oo faraxsan buu arkay
warshimbirtu way faraxsan tahay abaarta ka soo qaada buu yidhi dhul aarana oo doogaa la geeyo biyihii iyo wixii qulqulayaan shimbirtii murugo baa ku dhacday way baad iyo biyeent inay cuntana way diiday dabeedna markii laga sabray biyana baqtinina bal ku celiya meeshii abaarta ahayd bartii abaarta markii lagu celiyay bay baalayn bilowday iyo farxad sidaa waxaa ka dhigan biyo ciisaha dhulkaas adigu abaarta soolimaha aad u aragto bay ciise jecel yihiin wayna ku faraxsan yihiin wayna ku nool yihiin meel loogama socdaan ciise wuxuu ku faraxsan yahay kaanu dayno ninkii wuu qoslay korneelka ee wuxuu yidhi samirre markayga horeba kama filaynin waxaan ku farxayn oo ii sheego marka taasina waa damaca gumaysiga iyo cadaadiska uu dadkani soo maray iyo inta dhaqanka caqabado lala soo maray midaasaa u yar hadday Portugiis tahay Faransiis tahay Ethiopian tahay Ingiriis tahay Talyaani tahay qolo kasta dhibaato inay u geysata waa isku dayday laakiin waa bartaas la soo gaarsiiyay xilli waxa la soo gaarsiiyay ay Soomaalidu thaqaafadii waxbarashadina heer ka marayso dunidii caalamkana ay gashay baahida dalkeeda looga qabo nidaamna ay aragto nidaam la'aan ay u burburayso u baaba'ayso nidaamkeedina uu dad la'aan u duugoobayo marka sidaa daraadeed faa'iidooyin fara badan baa buugga ya gudihiisa ku jira waa isla arki doonaa insha Allah gabagabadiisa markaanu gaarno hadii la yiraahdo faa'iidooyinkiisa da'yarta Soomaaliyeed baan doonaynaa inaan maskaxdeeda aan ku baarimino inta ayaynu ku soo koobaynaa Cabdiraxmaan Adnan Ramadaan Kariim intaan qaybta 35 ku kulmi doono هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته